السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلام وعندا وضيال هالكن وجنال كالحرية نيوز waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu doorka roon wararka aan idin hayna xilligan. Mareykanka oo ka hadlay weerarkii saldhigga Lamu oo diyaarado dagaal lagu gubay. Cabsi dhanka amniga ah oo soo food saartay dawladda Kenya kadib weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhig ku yaala gobolka Lamu. Villa Soomaaliya oo qarka u saaran in ay ku fashilanto maamul samaynta Galmudug iyo hadalhayn arrintaasi ka dhalatay. laba hogaamiye maamul goboleed oo ku heshiiyay in ay ka tashtaan khilaafka kala dhaxeeya Villa Soomaaliya xukun lagu riday odayaal iyo siyaasiyiin dhaliilay xukuumadda Siciid Dani ee Puntland ciidamada xoogga oo la wareegay deegaano ka tirsan gobolka Bay qasaaraha anyaxa uu ka geysto Soomaaliya oo la shaaciyay qodobada iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan wararka janaalka Al-Xurriya News haddii aad janaalka ku cusub tahay fadlan subscribe inoo saar gambaleelkana furo si aad u heshid wararka warbixinada 24 saac halkan aan idinku soo gudbino ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa wararka janaalka Al-Xurriya News haatan ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan aan ku bilownay Mareykanka ayaa ka hadlay weerarkii saldhigga Lamu oo lagu gubay diyaarado dagaal taliska Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa war ka soo saaray weerarkii xoogganaa ee saaka aroortii hore ee lagu qaaday saldhigga Lamu oo si wada jir ay uga howlgalaan ciidamo Mareykan ah iyo kuwa dawladda Kenya. Africom ayaa ugu horeyntii xaqiijisay in weerarkaasi Al-Shabaab ay la bartilmaameedsadeen saldhig ay ku leeyihiin gobolka Lamu ee dalka Kenya. qoraalka ka soo baxay Africom ayaa lagu sheegay in qasaaro uu ka dhashay weerarkan oo xigay dagaal dhexmaray ciidamada saldhigga joogay iyo ragga weerarka soo qaaday ee ka tirsanaa dagaalyahanada xarakada Al-Shabaab. dhinaca kale wakaalada wararka AB ayaa baahisay in weerarka uu geystay qasaaro xoogan oo soo kala gaaray labada dhinac iyo saldhigga lagu dagaalamay. AB oo soo xiganaysa saraakiil boolis ah ayaa sheegtay in 3 diyaaradood oo nooca dagaalka oo laba ka mid ah Mareykanka uu lahaa midna dawladda Kenya ay lahayd lagu burburiyay halkaasi. sidoo kale waxay intaasi ku dartay wakaalada wararka AB in la gubay diyaarad kale oo nooca qumaatiga u kaca ah iyo gaadiid dagaal oo ay lahaayeen ciidamada Mareykanka ee jooga saldhiggaasi. weerarkan oo mas'uuliyadiisa ay sheegatay dagaalyahanada xarakada Al-Shabaab ayaa waxa ay baahiyeen in ay la wareegeen qayb ka mid ah saldhigga Simba oo ay ku sugan yihiin ciidamo Mareykan ah iyo sidoo kale kuwa Kenyan ah. Al-Shabaab ayaa waxa ay soo bandhigeen sawirro laga soo qaaday saldhigga weerarka lagu qaaday kuwaasi oo laga dheehan karo diyaarado dagaal oo halkaasi ku gubtay iyo sidoo kale holac ka kacaya gudaha saldhigga. wali waxaad daawanaysaan wararka janaalka Al-Xurriya News ismaqal iyo daawasho wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan. cabsi dhanka amniga ah ayaa soo food saartay dawladda Kenya kadib markii Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ku yaala gobolka Lamu. hay'adda duulista rayidka ah ee Kenya ayaa joojisay duulimaadyada diyaaradaha garoonka Manda Airport ee gobolka Lamu. duulimaadyada ayaa xayiraad lagu soo rogay ilaa faahfaahin dheeraad laga bixinayo weerarkii dabliyadii hubisnada ee ka tirsaneed Al-Shabaab ay aroortii hore ku qaadeen saldhigga militariga Kenya iyo Mareykanka ay ku leeyihiin ee gobolka Lamu. shirkadaha duulimaadka ayaa xaqiijiyay in ay baajiyeen duulimaadyo ay maanta ku tagi lahaayeen garoonka diyaaradaha Manda Airport ee gobolka Lamu kadib amar ka soo baxay hay'adda duulista rayidka ah ee dalka Kenya. ururka Al-Shabaab ayaa waabarigii hore ee saaka waxa ay weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada dawladda Kenya ay ku sugan yihiin xirada Simba kuna taala deegaanka Manda Bay ee gobolka Lamu. wargeyska Daily Nation ayaa booliska ka soo xigtay in 5 qof oo weerarkaasi looga shakisan yahay la xiray. warbixinta booliska ayaa sidoo kale lagu sheegay in 3 diyaaradood oo nooca dagaalka ah lagu gubay halkaasi. Al-Shabaab ayaa u muuqata in ay kordhinayaan weerarada ay ka fuliyaan gudaha dalka Kenya. dhawaan ayay ahayd markii weerar ay ku qaadeen bas rakaab ah oo u socday gobolka Lamu. dawladda Kenya ayaa xilligan waxa walaac xoogan uu ka soo food saaray arrimaha la xiriira dhanka amniga iyadoona mar walba la filan karo in Al-Shabaab ay sii kordhiyaan weerarada ay ku qaadayaan fariisimada ciidamada Kenya ay ku leeyihiin gudaha dalka Kenya. wali waxaad daawanaysaan wararka janaalka Al-Xurriya News ismaqal iyo daawasho wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan. Villa Soomaaliya ayaa qarka u saaran in ay ku fashilanto maamul samaynta Galmudug waxaana arrintaasi ka dhalatay hadalhayn badan
magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa waxaa ka socda qabanqaabadii ugu dambeysay ee guddiga doorashooyinka ay ugu dhawaaqi lahaayeen 69 xildhibaan ee ka tirsan xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Galmudug. sidoo kale magaalada Dhuusamareeb waxaa ku sugan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. xukuumadda Soomaaliya ayaa la daalaa-dhacaysa dhibaatooyin badan oo kaga imaanaya dhanka siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada maamulka Galmudug oo ka arrimiyo, waxaana isbarbaryaac ku yimid dhismaha maamul u samaynta Galmudug iyadoo aanu ka warqabno in dhawaan madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo ku dhawaaqay guddi cusub oo uu sheegay in ay doorashooyinka ka dhacaya Galmudug ay dardar gelin doonaan. ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa jahwareer fara badan kala kulmay dhismaha iyo dhamaystirka maamulka Galmudug, waxaana ilaa hadda soconaysa maamul u samaynta Galmudug ku dhawaad muddo 6 bilood ah ay filla Soomaaliya la daalaa-dhacaysa in maamul loo dhan yahay loo yagleelo deegaanada maamulka Galmudug. mas-uuliyiin ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegay in guddiga doorashooyinka la filayo in maalmaha soo socda ay ku dhawaaqaan liiska 69 xildhibaan ee harsan oo lagu muransan yahay weli. beelaha qaar ee deegaanada maamulka Galmudug ayaa weli waxa ay dhaliil ka qabaan qaabka loo xulayo xildhibaanada uu yeelanaya maamulka Galmudug. xildhibaanada cusub ee baarlamaanka maamulka Galmudug ayaa marka lagu dhawaaqo waxa ay yeelan doonaan kulan iyagoona intaasi kadib gudageli doona arrimaha doorashooyinka Galmudug sida guddoonka baarlamaanka iyo midda madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi. magaalada Dhuusamareeb waxaa ku sugan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo maalmihii la soo dhaafay halkaasi ka waday kulamo la xiriira sidii loo xalin lahaa cabashooyinka ay qabaan dadka deegaanada maamulka Galmudug. dadka oo darasa dhanka siyaasadda ayaa ku micneeyay qaabka xilligan ay u socoto maamul u samaynta Galmudug mid aan wax natiijo ah laga keeni karin. dowladda federaalka Soomaaliyana arrintaasi laga cabsi qabi karo in ay ku fashilanto, balse waxa laga dhursugayo waxa ay tahay halka uu ku dambeeyo maamul u samaynta Galmudug oo xilligan madaxda ugu sareysa dalka ay faraha kula jiraan. weli waxaad daawanaysaan wararka janalka Al-Xurriya News. ismaqli daawasho wanaagsan ayaan idin leenahay. laba hogaamiye maamul goboleed ayaa ku heshiiyay in ay ka tashadaan khilaafka kala dhaxeeya filla Soomaaliya. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa la filayaa in maalinta berrito ah uu safar ku tago magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal kadib dib u doorashadii madaxweynaha maamulkaasi Jubbaland. dad ku dhadhow madaxtooyada maamulka Jubbaland ayaa waxa ay sheegeen in laba arrimood uu Axmed Madoobe u tagayo Puntland kuwaasi oo kala ah doorashooyinka soo socda iyo khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ka dhaxeeya. Axmed Madoobe ayaa Garowe kula kulmi doona madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdilaahi Dani iyaga oo ka wada hadli doona arrimaha la xiriira doorashooyinka iyo xilliga kala guurka ah ee arrimaha siyaasadda iyo khilaafka dowladda federaalka Soomaaliya kala dhaxeeya labada maamul ee Puntland iyo Jubbaland. labada madaxweyne ee Puntland iyo Jubbaland ayaa bilihii la soo dhaafay xiriirkooda waxa uu ahaa mid wanaagsan iyadoo madaxweynaha Puntland uu si weyn uga qayb qaatay xafladii caleemasaarka Axmed Madoobe kadib markii ay qaadacday dowladda federaalka Soomaaliya. xogo hoose oo ay helayso Al-Xurriya News ayaa waxa ay tilmaamayaan in Axmed Madoobe iyo sidoo kale madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Dani ay si hoose uga wada hadli doonaan sidii looga arrinsan lahaa khilaafka kala dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya. balse waxa laga dhursugayaa wada hadalladaasi oo berri bilaaban doona iyo natiijooyinka ka soo bixi doona. weli waxaad daawanaysaan wararka janalka Al-Xurriya News. ismaqli daawasho wanaagsan ayaan idin leenahay. xukun ayaa lagu riday odayaal iyo siyaasiyiin dhaliilay xukuumadda Siciid Cabdilaahi Dani. maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari ayaa go'aan ka gaartay dacwadda loo haysto siyaasiga Muuse Cali Jaamac iyo 4 oday oo horey u dhaliilay xukuumadda Puntland ee Siciid Cabdilaahi Dani uu hogaamiyo. maxkamadda ayaa xukunno kala duwan oo iskugu jira xabsi iyo ganax lacageed ku riday eedeysanayaasha kadib markii ay sheegtay in ay ku heshay kicin dadweyne iyo aflagaado ay u geysteen madaxda dowladda Puntland. siyaasiga caanka ah ee Muuse Cali Jaamac, nabadoon Cabdullaahi Yuusuf Buuxe iyo nabadoon Cawad Aadan Maxamed ayaa saddexdooda waxa ay maxkamadda Boosaaso ku xukuntay xabsi muddo 3 bilood ah iyo ganax lacageed oo dhan $500 Mareykanka ah. sidoo kale maxkamadda ayaa 2 sano oo xabsi ah iyo ganax lacageed oo dhan
$1,000 ku riday nabadoon Cabdicasiis Baydhabo iyo nabadoon Maxamuud Aadan Rooble. Ugu dambeyntii gudoomiyaha maxkamadda oo ku dhawaaqay go'aanka ayaa sheegay in wali xukunsanayaasha ay u furan tahay racfaan. Muuse Cali Jaamac oo si weyn looga yaqaan Puntland iyo afarta oday ee kale ayaa horay shirar siyaasadeed ugu qabtay Boosaaso kuwaasi oo looga soo horjeedo DP World. tan iyo markii xabsiga la dhigay odayaashan waxaa Boosaaso ka jiray xiisado xoogan oo ka dhashay xariga oo u dhaxeeya madaxweyne Siciid Cabdilaahi Dani iyo waxgaradka ku dhaqan deegaanada maamulkaasi. wali waxaad daawanaysaan wararka janalka Al-Xurriya News. Ismaqli daawasho wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal. ciidamada xoogga ayaa la wareegay deegaano ka tirsan gobolka Baay. ciidamada xoogga dalka ee ku sugan gobolka Baay iyo ciidanka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa deegaano hoostaga degmada Diinsoor ee gobolka Baay kala wareegay dagaalamayaasha Al-Shabaab kadib markii ay halkaasi howlgallo ay ka sameeyeen. saraakiisha hogaaminaysa howlgalkaasi ayaa warbaahinta u sheegay in ciidanku ay la wareegeen tuulooyinka kala ah Laba Warood, Tugaar oo dhammaantoodba hoostaga degmada Diinsoor ee gobolka Baay. taliyaha ururka 54aad ee guutada 6aad ee ciidamada xoogga dalka Xasan Aadan Yarow oo howlgalka hogaaminayay ayaa sheegay in ujeedka howlgalkan uu ahaa in la isku furo wadooyinka ay go'doomiyeen dagaalyahanada Al-Shabaab. waxa uu intaasi ku daray in ay sii daayeen dad ku xirnaa deegaanada ay la wareegeen kuwaasi oo markii hore u xirnaa dagaalyahanada Al-Shabaab. ciidamada xoogga dalka iyo kuwa Koonfur Galbeed ayaa horay waxay howlgallo sifayn ah uga sameeyeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada Baay iyo Bakool ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. ugu dambeyntiina daawadayaal khasaaraha anyaxa uu ka geystay Soomaaliya ayaa la shaaciyay kadib markii anyax fara badan oo dhibaato u geystay dhul beeradyo badan oo ku yaala Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa dawladda Kenya waxa ay ku dhawaaqday in ay hawada ka buufin doonto 3 gobol oo ka tirsan waqooyiga bari ee dalkaasi Kenya si ay uga hortagto khasaaraha ballaaran ee anyaxaasi uu ka geysan karo dhul beeradyada ku yaala dalkaasi. hadalka ka soo baxay dawladda Kenya ayaa lagu sheegay in raxan cayayaan ah oo la mid ah anyaxa uu u soo gudbay 3 gobol oo ka tirsan dalka Kenya waxa ayna kala yihiin goboladaasi Wajeer, Marsabit iyo Mandera 28 bishii December ee sanadii tagtay iyadoo Kenya intaasi ku dartay in ay heshay awoodii ay ku buufin lahayd hawada taasi oo bilaabatay maalinimadii Sabtida ahayd ee aanu ka soo gudubnay. wasaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in dawladda Kenya ay soo iibsatay 3,000 oo litir oo kiimika ah si ay ugu buufiso hawada iyadoo sidoo kalena u qaybin doonto dadka ku dhaqan deegaanada gobolada laga cabsi qabo in anyaxaasi uu soo gaaro. hay-adda cuntada iyo beeraha adduunka ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan FAO ayaa sheegtay in anyaxa uu burburiyay 70,000 oo hektar oo dhul beereed ku yaala Soomaaliya iyo Itoobiya waxayna hay-addu tilmaamtay in duulaankii ugu weynaa ee anyaxaasi ku soo qaaday geeska Afrika muddo 70 sano ah. guud ahaan daawadayaal wanaga inta wararka aad kala socoteen janalka Al-Xurriya News. haddii aad janalka ku cusub tahay fadlan subscribe noo saar aragtidaadana nagula wadaag qaybta hoose ee commentiga. waad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka warkayaga.